madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ayaa dowladda iyo shacabka Kuwait uga tacsiideeyay geeridii amiirka dalkaasi. madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shacabka iyo walaalaha dowladda Kuwait waxa uga tacsiideynaya geeridii amiirka dalkaasi Sheikh Sabaax Al Ahmed Al Jaabiri oo maalinimadii shalay subaxii hore ku geeriyooday dalka Mareykanka isagoo da'diisu ahayd 91 jir. madaxweyne Farmaajo waxa uga tacsiideynaya gaar ahaan qoyska boqortooyada eheladii uu ka baxay amiirka Kuwait, waxaana xusay in dowladda Kuwait iyo shacabka uu xiriir wanaagsan kala dhaxeeyo dowladda dhexe. taasna waxa uu rajeynayaa inay sii socoto, wuxuuna amiirka dhintay ku sifeeyay mid ku caanbaxay arrimaha samafalka. Sheikh Nawaal Al Ahmed walaalaha anahay amiirka dalka Kuwait waan xasuusan doonaa wixii uu ka soo qabtay dalkeena hooyo ee Soomaaliya, waxaana aan u tacsiideynaa boqortooyada dalka Kuwait, shacabka iyo madaxda dalkaasi. amiir Sabaax waxa uu muddo ka badan nus qarni ku jiray siyaasadda dowladda Kuwait, isagoo noqday ra'iisul wasaare, wasiirka warfaafinta, wasiirka arrimaha dibadda iyo wafdi ka socday dalka Mareykanka oo loo diray kana socday dalka Kuwait sanadkii 2006. Sheikh Sabaax waxa uu ku caanbaxay arrimaha gargaarka gaar ahaan Soomaaliya waqtiyadii ay ka jireen xaaladaha nolol xumo. sidoo kale waxa uu qayb ka qaatay fatahaadaha ka jira gobolada dhexe ee dalka, gaar ahaan Hiiraan iyo Shabeellada Hoose, halkaasoo la sheegay in sanadkii 1978 oo ka mid ahaa wafdi yimid degmada Afgooye kana qayb qaatay samata bixinta dadkaasi. Kuwait waxa ay qabanqaabinaysaa in ay marti geliso shir muhiim ah oo looga hadli doonaa arrimaha waxbarashada Soomaaliya, balse waxaa loo baajiyay cudurka COVID-19 dartiis.